عقال وحجرد iyo madax dhaqameed ka soo jeeda beelaha daga gobolada Togdheer Saaxil iyo Saraar oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Hotel Balcad ee magaalada Burco ayaa dhaliilo u soo jeediyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qaranka Soomaaliland waxaanay ku eedeeyeen in uu kiiska ka jabiyay gacan ku dhiigle ku eedeysanaa dil uu u geystay askari kale oo ka tirsan ciidamada waxgaradkan oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii waxaan ku hadlaynaa halkan dhiilaad iyo aad u culus waxa weeye ciidamada qaranka ayaanu gudoomiyaha maxkamadda la yiraahdo Saleebaan oo qarannimadii waxyeelay oo calankii Soomaaliland rogay oo dadkii militariga ku dagaalamayay jiidda hore ninkii dhabarka ka toogtay oo nin reerkana dilay oo beesha Cumar ah oo la yiraahdo Saleebaan Maxamed Faarax gacan ku dhiiglaha waxa sii daayay gudoomiyaha maxkamadda ciidanka oo Saleebaan la yiraahdo maxkamadda darajadii koobaad dil bay ku xukuntay markhaatiyadii buu lahaa isaga cadeeyay haddana wuxuu ku sii daayay oo yiri dawladda qabta dawladda markaa ma dawladda dirtay ninka dadka qaranka u dagaalamaya dhabarka ka toogtay ma dawladda dirtay buu leeyahay gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu leeyahay madaxweynaha maamulka dawladda wasiirada labada gole intaba waanu ka ashkateynay cidii ay qusaysaba inay wax ka qabtaan waxaanu leenahay anaga kii wax geystay beesha baa laga qaadaa ninka qarankiisi difaacay ninka dhabar ka doogtay waa nin qarankii wax yeelay oo calankii Soomaaliland wax rogay baaqaanu ka soo jeedinaa waxa weeye waa ninka ciidanka qaranka ahaa ee jiida lagu dilay berigii dhaweyd ninkaas loo dilay badheed cadaadayna ninkaasu ninka inuu badheed u dilay markhaatina ku cadeeyay isna uu qirtay kii caanka ahaa maxkamad baa la keenay darajadii koobaad maxkamadeedii waa la keenay dil bay ku xukuntay ambil baa la qaatay la isku halaynayo gudoomiyaha maxkamadda sare ee darajada labaad oo ay ninka isku reer yihiin ayaa ambil loo qaatay iyadoo isku halayn laga qabo arrintii nooca ahayd ninkii dilkii waa ka jabiyay gacan ku dhiglay dilka maxkamadda koobaad ku xukuntay ninkii la isku halaynayay uu ka jabiyay waxaan leenahay ninka gudoomiyaha ah wuxuu ku gafay ciidankii qaranka wuxuu ku gafay jiritaanka Soomaaliland wuxuu ku gafay wixii Ilaahay u abuurtay waxaan leenahay arrintaas waa in laga hawl galo wuxuu waliba yiri dib eegis ma leeyahay yiri waxaan leenahay arrintaas cidii ay qusayso hadday golayaasha tahay golaha baarlamaanka golaha wasiirada golaha guurtida madaxtooyada madaxweynaha waxaan leenahay arrintaa waa in xukuumadda Soomaaliland ay haddii alle wax ka qabato hadday reernimo noqoto annagu ninka iyaga cidii dishay waanu garanaynaa ninka dilay waxa weeye Saleebaan Maxamed Faarax oo habar Yunis oo reer Burca waxaan leenahay hadday qabiil noqoto dee way isqaan halkan baaqa waxaanu ka jeedinaynaa marka aanu nahay beesha Cumar Weyne waxaanu sheegaynaa oo dawladda u sheegaynaa oo islaamka u sheegaynaa oo inta afka Soomaaliga taqaanba aanu sheegaynaa ciidanka qaranka Soomaaliland ee difaaca ku jira ee xabaddu ku dhacayso ninka dhabarka ka toogtay waxaanu anagu u aragnaa inuu yahay dadka jiritaanka Soomaaliland ka horjeeda meel jiraanba ka difaaca ku jira ee xabaddu ku socoto ninka dhabarka ka toogta nuqura nin dilay uma aragno laakiin nin jiritaanka Soomaaliland ba ka horjeeda oo itaalu waayeen baan aragnaa doonayo inuu qoorta ka gooyo ama majaxaabiyaba marka waxaanu leenahay markii ay cadaatay inuu dilay ee saddex markhaati furtay ee isagii qirtay annagu meesha kale wax looga doonayo dee garanmayno ka ambiilka loo qaatay odayaashii hore soo joogo waa maqlaysaan oo waa in adeerkii isagu la mid yahay ka dhabarka ka tooganayo ka ambiilka loo qaatay madeerka waa isku mid anigu intaa waxaan ku darayaa annagu ninkayagii cidda dishay Muuse Cabdallah dilo waan ognahay jilib baanu ognahay
jilib baanu wada naallaa waxaanu dawladda baaqa ugu soo jeedinaynaa nabadgelyada Soomaaliland baanu jecelahay ilaalinaynaa haddii arrintaa waxba laga qaban waayo waanu wada joognaa nimanka kan maxamed jookar telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco.